السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وإذن سلامي وحان إلهي إذن كجرجينيا عمر دير عبادة دميستيران يعافمات دن ملكستود جوجتان نيجر على نقطة أيانتان وحوما نسوق لنين وايا وانا حنون صدي عادنا وأم مشغولي مركا الحمد لله حدرتان everything's going well and baby يرنواد اللي وحن صدبحي هاد baby أيان علوش كسيدي حدنا ودشي الحمد لله marka la idinkaga sheekeyn doona balse maanta insha Allah waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago laba wax oo xasuusin mudan labadaas wax oo ah waliga ha iloobin sabarkaaga marka aad wax haysanin iyo kan labaad oo ah ha iloobin dabeecadaada marka aad wax haysato sababtoo ah midka koowaad qodobka koowaad oo ah ha iloobin sabarka marka aadan waxba haysanin sabarka waa awoodda iyo dulqaadka iyo aaminaada iyo wax walba ay soo hoos galayaan mar alla markaa sabarka gacanta ku haysatid siiba markaad sabool tahay ama waxaad doonaysay ama rabtay aad weysay ama markay caqabado badan ku haystaan sabarka waa ma aragtay waxyaabaha wax kuu furi doono aad wax ku heli doontid hadhihin oo ha oranin maxaa anigan u nasiib daranahay muxuu ani ilaahay wax ii siin laayahay maxaan u heli laahay waxaan rabo maxaan u mutaystay dhibaatadani waxaan hadhihin waa ogahay bini'aadana tahay mararka qaar laga yaabo inuu shaydaan ka faa'iideysto ama waxyaabahaasi wax u dhow aad dhahdid balse isku day inaa markii aad dareentid sidaas oo kale shaydaanka iska naartid sababtoo ah shaydaanka ayaa laga yaabo ma aragtay in ilaahay adiga ku tababarayo ma aragtay ilaahay inuu ku doonayo ma aragtay waxa aad haysatay meesha aad joogtay wax ka sii horumarsan wax ka sii fiican sida meeshaas u tagleed ka hor in lagu tababarayo oo caqabado laga hor keenayo wax la'aan lagu tusayo la eegayo sabarkaaga iyo dulqaadkaaga marka waa muhiim mar walbo inaadan ma aragtay ereyada qaar aad isdhihin taas oo ahayd tii sabarka ha iloobin sabarkaaga marka aadan waxba haysanin badanaa bini'aadanka sidiisaba markuu waxba haysanin waxyaabo badan dadka kaa sareeyaa la eegaa dadka kaa sareeya leedahay hebel iyo heblaayo eeg noloshay ku nool yihiin hebel iyo heblaayo eeg guriga ay haystaan hebel iyo heblaayo fiiri caruurta ay haystaan ama ilmahay haystaan maxay ahayta waxbarashada ay haystaan lacagta ay haystaan noloshay ku nool yihiin guud ahaan mar walba bini'aadanka sidiisaba waxay jecel yihiin inay wax barbar dhigaan inay naftooda naf kale u barbar dhigaan barbardhiga mararka qaar wuu fiican yahay la dhihi karaa haddii aad qofka wax ka baranaysid ku dadaal iyo dhiirigelin aad ka dhiganaysid waxyaabahaas oo kale marka laakiin iska jir inaad dhahdid camal ilaahayow heblaayo waa siisa waxaas ana maxaa ii siin weysay taasoo kale xoogaa ma fiicno haddii aad rabtid adig dhibaato ama caqabado kugu sugan tahay adoo qof kale magaciisa soo qaadin adoona soo barbardhigin ilaahay cid kaa xigta ma lahan soo adiga si toosu abaar ilaahay dhibaatadaadana wuu ogyahay adna dheh ilaahow dhibkaani waxaan iga saar midkii labaad oo ahaa ha bedelin dabeecadaada markaad wax haysatid dad qaar waxaa jiro markuu ilaahay xoolo u dhiibo dadka kale iskala weynaado dadka kale yaso u maleeyo qofkan bini'aadanka inuu wax weyn ka weyn yahay ama ka fiican yahay ama asagaba ma aragtay ilaahay dadka kale ka jecel yahay xataa markii ilaahay xoolo ku siiyo ama wax ku siiyo taas nafteeda xusuusnow in lagugu imtixaamayo sida dabeecadaada ah ha noqonin qof isla weyn oo ha ismoodin ma aragtay inaa adiga u qalantid waxaas qof kastoo ilaahay abuuray wuu qalmaa balse ilaahay asaa og qofka qaar dadka qaar wuxuu wax u siiyo dadka qaarna u siinin kulli waa wada si gooni ah ay si gaar ahba ilaaha og ilaahana sameeyo waxa uu rabo asaga adduunka iyo wax kasta ku jirana iska leh marka haddii aad tahay qof maal leh ama xoolo ilaaha u dhiibay ogow maanta waxa haysatid laga yaabo inaad bari haysan doonin waa muhiim ani hadalkayga badanaa ma ahan inuusan ahayn inaad ogeyn waxaad sameynaysid ee waa iga xasuusin uun iyo ma aragti la wadaag soo marka waa muhiim in mar walba aad waxa haysatay wax ka bixisid si ilaahay adigana kugu barakeeyo insha Allah intaas ku soo gabagabeena mahadsanidin dhamaantiin salaam